daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barashada dastuurka Puntland oo aan ugu talagalay in bulshada Puntland dastuurka u helaan si maqal iyo muuqaal ah. Soo saaristeenu waxa ay dadweynaha ka caawin doontaa barashada dastuurka iyo xuquuqda uu dastuurku siiyay shacabka, kuwa ay leeyihiin iyo kuwa lagu leeyahay. barnaamijkan waxaa taageeraysa hay'adda Somali Civic Voice, waxaadna kala socon doontaan warbaahinta Dawan Films, baraha bulshada ee hay'adda Somali Civic Voice. waxaana idin soo jeedin doonaa anigoo Jaamac Ciise Maxamuud. waa xagaag daawadayaal, haatanna ku soo dhawaada mar kale barashada dastuurka Puntland. qodobka 5 dadka. nambarka 1 dadka dawladda Puntland waa dadka u dhashay Puntland iyo qof kasta oo Puntlandnimada ku helay qaab sharci ah. qodobka 2 xeerka u gaarka ah ayaa qeexi doona Puntlandnimada, xaqa deganaanshaha iyo kasbashada meeqaamka Puntlandnimada. qodobka 6 tirakoobka. nambarka 1 dadweynaha Puntland 10 sanaba mar ayaa la tirakoobi doonaa. nambarka 2 xeer gaar ah ayaa tilmaami doona waqtiga habraaca tirakoobka. qodobka 7 ee dastuurka Puntland, dhulka iyo sohdimaha. nambarka 1 dhulka Puntland waxa uu ka kooban yahay gobolada Bari, Nugaal, Sool, Cayn, Karkaar, Mudug, Highland, Sanaag. nambarka 2 midnimada Puntland waa lama taabtaan, laguma xadgudbi karo, lamana kala qaybin karo. nambarka 3 Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa lana xaajoonaysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro dawladda Puntland. qodobka 4 dhulka Puntland waxaa ku dhan hawada sare, beriga, dhulka hoostiisa, jiidaha dhaqaalaha ee badda oo dhan 200 oo mayl oo bad ah oo ka bilowda halka uu ku dhammaado hirka ugu dambeeya, waxaana mas'uul ka ah dawladda Puntland. qodobka 8 afka rasmiga ah ee dawladda Puntland waa afka Soomaaliga iyo Carabiga. qodobka 9 diinta. nambarka 1 diinta Islaamku waa tan keliya ee dawladda Puntland ee Soomaaliyeed. lambarka 2 diin aan tan Islaamka ahayn laguma faafin karo dalka Puntland. lambarka 3 qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada waxaa saldhig u ah diinta Islaamka. nambarka 4 waxaa reeban xeer iyo dhaqan kasta oo ka hor imaanaya diinta Islaamka. qodobka 10 ee dastuurka Puntland, magaalo madaxda. nambarka 1 magaalo madaxda dawladda Puntland waa magaalada Garowe, waana fadhiga dhexe ee dawladda Puntland. nambarka 2 magaalo madaxda waxaa lagu dhaqayaa xeerar u gaara. qodobka 11 calanka, astaanta iyo heesta dawladda Puntland. qodobka 1 calanka Puntland waa 4 geesle, labadii dhinac oo kasta oo iska soo horjeeda isla eg yihiin, kana kooban 3 midab oo kala ah. qaybta sare waa buluug furan, dhexdana ku leh xidig cad oo 5 geesooda, madaxya siman leh, kana turjumaysa calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qaybta dhexe waa midabka cadaanka, kana turjumaysa nabadda Puntland. qaybta hoose waa midab cagaaran, kana turjumaysa barwaaqada iyo khayraadka Puntland. lambarka 2 astaanta dawladda Puntland waxa ay ka kooban tahay gaashaan ka kooban midabka calanka Puntland, midabka cadaanka ah oo ay dhexda kaga sawiran tahay dhiil, taasoo u taagan nabad iyo caano. gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rukumo dahabi ah. gaashaanka hareerihiisa waxaa ka haya 2 faras oo xamar ah oo isku beegan, kuna taagan waran 2 afla ah oo dusha sare ay kaga hareeraysan tahay 2 calaamadood oo dabiici ah. waranka waxaa ku gadaaman maro xariir dahabi ah oo ay ku qoran tahay dawladda Puntland. waa hagaag daawadayaal, waa naga intaas qaybtii 2 ee dastuurka Puntland. waxaa naga afeefa inaanu siduu u qoraa u soo gudbinay dastuurkan, aanaan waxna ka bedelin waxna ku darin. intaynu qaybtan qayb lamida ku kulmi doono, nabaadiino.